Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada Action Som waxaa idinla hadlaysaa Jamiilo Ismaaciil oo alaaba aad uga barateen siyaasadda hadba wixii wadanka kasoo kordha ama adduunkaba intaan ka awoodo inaan idin soo gudbiyo marka hadda waxaan rabay inaan ka hadlo healthcare-ka Obamacare saa la socotaanba daryeelka caafimaadka oo la gudbiyey dhowr sano ka hor Obamacare loo yaqaano kii lagu bedeli lahaa ay dowladda Donald Trump soo saartay marka taasaan rabay inaan ka hadlo cod wuxuu ku gudbay 217 waxaana u codaysay maya tiri 217 haye tiri saas u gudbay 213 maya dhaheen 213 ka maya tiri waxa ku jira 20 Republicans ama xisbiga jamhuuriga ah 20 kaas ayagana waxay la codeeyeen dimuqraadiga marka saa la hore ula socotaanba kii hore oo March oo muxuu ahayto afhayeenka aqalka muxuu ahayto Paul Ryan ninka la dhaho oo Wisconsin ka imaada oo afhayeenka aqalka ah waa tii uu yiri cod ma uu heli doono biilka hadda yaala marka gadaal aan u celinayna ayadoon loo codeyninba waa tii kii hore la celiyo oo wajiga ugu weynaa oo dowladda Donald Trump waa tii uu noqday marka muxuu mar kale soo celiyeen biilkii wala soo ceshay waxba arrintankii wax saas laga bedelay kii markii la soo celiyay waa loo codeeyay khamiistii wuu gudbay wuxuu u sii socdaa laba aqal waaye aqalka kale uu sii gudbaya sanadka muxuu ahayto saadaasha xagga siyaasadda dadka badankiisna waxay leeyihiin sida uu hadda yahay hadduu ku sii socdo muxuu ahayto sanadku ku dhiman doonaa oo sanadka ma dhaafi doono laakiinse inta badan mararka qaarkood markii la rabo wax ka goreys inta laga soo gudbiyo in sanadka loo gulbiyo labada aqal sanadka mid kala dhaho aqalka wakiilada waa la soo bedelaa hadba waxbaa laga bedelaa qoladaana la qanciyaa qoladan xisbigan muxuu ahay tiimkana la qanciyaa saasaa la yeelaa laakiin sida uu hadda yahay muxuu ahay hadduu kusii socdo oo saas lagu geeyo inuusan gudbi doonin waa egtahay marka aan ku soo noqdo ka muxuu ahay daryeelka caafimaadka muxuu yahay kiidan Obamacare muxuu uga duwan yahay maxaa wadanka dhan uu la qaylinayaa oo loo leeyahay kan ma fiicna waxa ugu weyn oo muxuu ahay kaarkan muxuu daryeelkan caafimaad uu sameynayo Obamacare lagu bedelayo waxa waaye waxa la dhaho pre-existing condition waxa waaye qof cudur qaba inuu kaar caafimaad gadan karo kaba soo qaad wadna xanuun ayaa wuxuu kugu dhacay ama kansar qabtaa ama sokor baad qabtaa ama any kind of cudur ku rabo ha ahaado ayaad qabtaa waagii horeeto intaan Obamacare la soo saarin kaararka caafimaadka waxay awood u lahaayeen inay diidaan inay ka gadaan ay ku dhahaan cuduraad qabtaa maadaama cudur qabtid way xisaabinayaan waxay fiirinayaan qofkan aad muu isticmaali doonaa aad u isticmaalaysaa sababtoo waa jirantahay marka wuxuu waa ganacsan ma kama dambaystii marka waxay awood u lahaayeen inay muxuu ahayto ay ku diidaan oo ay dhahaan muxuu ahayto kuma siinayno marka taas ayuu Obamacare ka daaqada ka saaray hadda si maldahan ayay pre-existing ku joogtaa pre-existing hadda waxay ku joogtaa waxaa la yiri siday rabaan ayay u sicirka rabaan ayay u sameyn karaan macnaheedu marka waxa waaye haddaa kaar caafimaad rabtid inaad gadatid muxuu ahayto kaba soo qaad company hebel ayaad rabtaa inaad ka gadatid company hebel kuma dhahayo maadaama cudur qabtid kaama gadayno kaarkan caafimaadka waxay ku dhahayaan 100,000 waaye 10,000 waaye $100 waaye lacagaada adi awoodi karin numberkaas wuxuu rababa ha ahaadee tiradaas intay rabtay leekaan kartaa ayay ku leeyihiin marka haddaada adi tiradii awoodi karin waa lagu muxuu ahay takooray sababtoo ah takoorku muxuu ahay in wixii lagu diido ama lagu ceyriyama siyaabo kala duwan ayaa wax lagu diidaa marka taas ayuu insurance-yada ama kaararka dadka caafimaadka businessyada gada taas ayuu siinayaa taas maadaama uu ayaga uu siinayo awoodii way ka wareegaysaa dadka muxuu ahayto muxuu ahayto shacabka ah taasa ugu weyn pre-existing waxaa waaye waxyaabaha pre-existing ka hadda like muxuu ahayd waxaa kamid ah cudurrada kansarka basically anything cudur ah oo dhaco oo aadano ku dhaco oo waxyaabo aad u fara badan ah pre-existing ku dhex jira taasoona ah waxaanan soo koobi karin aniga hadda
muxuu ahayto Obamacare wuxuu lahaa waxa la dhaho essential health benefits waxa waaye daryeelada caafimaadka ah oo laga maarmaanka ah kaba soo qaad inaad dhakhtar tagtid inaad check-up isku soo samaysid inaad muxuu ahayto caafimaadkaaga la socotid oo kaleeto in sanadkiiba mar lagu eego haweenka mar muxuu ahayto inay dhakhtar gaar haday muxuu ahayto cudurka la dhaho cervical cancerka in laga fiiriyo minkooda haddayba gabadha soo qaangaarto oo xilligii dhalmadan ay ku jirto in muxuu ahayto ilmaha markuu muxuu ahayto soo koraayo muxuu ahayto la talaalo in ilmihii daawo la siiyo wixii uu kusoo kori lahaa miisaankii meeshii la geeyo oo health check-upka la siiyo waxyaabahaas oo dhan kaararka caafimaadka oo hadda jira oo Obamacare-ka markii la sameeyey muxuu ahayto kabacdi soo hoos muxuu ahayto jira hadda oo soo hoos galaya waxyaabahaas oo dhan waxaa looga dhigay mandatory khasab marka maadaama khasab looga dhigay kaararka caafimaadka dadka lacag aad u fara badan ayay ku safgarayeen muxuu kaloo sameeyey Medicaid ayuu basically caloosha ka soo jaray Donald Trump waxyaabuu dhihi jiray waxaa kamid ah Medicaid sana yeela Medicaid waa kaarka caafimaadka uu wadan ku dhaqan yahay waliba dadka faqriga ah Medicaid iyo Medicare la kala dhahaa Medicare waxa waay kan dadka waayeelka ah la siiyo markay dadka retire noqdaan oo shaqada ka fariistaan oo kale Medicaidna waxaa la dhahaa midka dadka saboolka ah loogu talagalay marka Medicaid kan dadka saboolka ah loogu talagalay ayuu intuu midi la qabtay camal in caloosha laga geliyo camal sababtoo ah budget fara badan ayuu lahaa I think 800 billion in heeda umaleena lacagta 800 billion in laga goyn doono 10 sano soo socota lacagtaas aad ay u fara badan tahay mana awoodo programka ama barnaamijkaasi in lacagtaasi laga jaro dadka laga jarayaa waxyaabo aad u fara badan oo dawladda bixin jirto dhan waxay soo hoos galaan Medicaid-ka programyo badan oo dawladda federaalka ay bixisaa jiro hadda Soomaalida mid ay yaqaanaan jiro dadka waliba qurbaha degan Mareykanka program waxaa jira la dhaho week muxuu ahayto hooyada islaamaha inta kaar la soo siiyo caano ku soo gataan oo kaleeto federal program way federal waaye barnaamij ee dawladda federaalka ay soo samayso lacag muxuu ahayto ay ku caawiso ama ay ku kaabto si hooyada dhashay iyo islaanta uur kale iyo cunuga yaroo hadda soo kobcaya loo soo kaabo haddaysan awoodin midda kaleeto Obamacare wuxuu lahaa wax la dhaho subsidy-ga waxa waaye in lacagta qayb laga bixiyo intanada badan waxaa naqaanaa kaarka caafimaadka dawladda bixiso dadka cayrta la siiyo ama muxuu ahayto dadka aan awoodin inay kaar lacag badan ku gataan kaararka dawladaha shaqooyinka laga bixiyo ama kaararka la gato kaarka caafimaadka wadanku aad buu qaaliyo boqolkiiba muxuu ahayto 6 ma ahaan numberkaas waa ilooy markala soo fiirin doonaa anyway dawladda subsidy wax la dhahay bixisaa kaba soo qaad kaar caafimaada laga gadaya $400 waaye Obamacare sida uu shaqeeyo afartaas boqol dawladdu waxay ka bixinaysaa 350 ama 50 laga yaabaa inaad iska bixiso ama $70 adi wax $100 ka yar ayaad iska bixinaysaa haddii aad samayso ani gobolka ahaa aan qaanaa 50,000 muxuu ahayto dollar sanadkii haddaad samayso ka yar lacag badan ayay dawladda ka bixinaysaa marka taas inta badan waxaa lagu qiimeeyaa qofka dhaqaalaha soo gala kaba soo qaad aniga haddaan sameeyo 20,000 cali ama faarax kalena 25,000 ama 30,000 uu sameeyo lacagtana la ka bixinayo way kala duwanaanaysaa iyadoo la miisaamayo la eegayo lacagta aniga aan sameeyo lacagtu hebel sameeyo hadda laakiin subsidy-gii waxaa laga dhigay age group kaba soo qaad age group waxa waaye da heblo ilaa da heblo lacag heblaha laga qaado da heblo lacag heblaha laga qaado kaba soo qaad laba qof oo 25-26 jirta isku meel kama shaqeeyaan qof waxa laga yaabaa waxba inuusan baran ninna waxa laga yaabaa inay lacag aad u fara badan ay soo gasho laakiin da'basa la eega mid kale labadii qof isku caafimaad inaysan ahayn laga yaabaa taas na meeshay soo gashay ayadana mid kale waxa waaye wuxuu sameeyay kaarka caafimaadka daryeelka caafimaadka dadka taajirka ah ayuu muxuu ahayto canshuurtu aad u hoos dhigay canshuur badanta ayuu u soo celinayaa Obamacare-ka waxyaabaha xisbiga jamhuuriga ay ku eedeeyaan waxa kamid ah canshuurtii lagu kordhiyay canshuurtii macquul ma ahan canshuurtii aad bay noogu badatay
ayaa ka mid ah sababtoo ah haddii la rabo in dadka faqriga ah lasoo kaabo dowladdu lacagta meelna kama keento dowladdu waa inay canshuur samaysaa marka canshuurta inta badan waxay ku kordhisay dadka muxuu ahayto taajirka ama dadka lacagta haysta waxaan u maleynayaa lambarka inuu ahaa 250,000 oo ka badan haddaad samayso oo kaleeto in canshuurtaada ay badatay Obamacare uu keenay taas in Obamacare uu ganaaxyo keenay haddaadan muxuu ahayto kaar caafimaad ku jirin in markuu sanadka dhammaanayo oo aad rabtid inaad canshuurta xaraysatid in ganaax lagaa qaadi doono waxyaabo aad noocaas oo kale uu soo kordhiyay taasay marka ku eedeynayaan ayaga waxyaabo fara badan uu laakiin hagaajiyay dad ka badan 24 milyan oo kaar caafimaad la'aan ahaa ayaa muxuu ahayto kaar caafimaad ku helay dadkii emergency-ga aadi jiray aad bay u yaraadeen saa maraykanku taqaanaan ma aqaanin markaad haddaad emergency-ga tagto sharci waaye haddaadan kaar caafimaad lahayn iyo haddaad leedahayba waxay ku qasban yihiin inay ku daaweeyaan marka kaba soo qaad haddaadan kaar caafimaad lahayn waa iska jooga laakiin markuu xanuunka kaa bato ayaa tegaysaa isbitaalka emergency-ga tegaysaa taasoo isla canshuur bixiyayaasha kusoo noqonaysa taxpayers sababtoo ah waxa dhaqaalaha waddanku uu isku wada xiran yahay waa silsilad oo isbitaalkan ayaga markay ku daaweeyaan waa lagu qasbay inay ku daaweeyaan adiga lacag siisaya ama siinina ayaga lacagtooda way helayaan kor iyo hoos isbitaalka waxay ka imaanaysaa dowladda dhankeeda canshuur bixiyaasha taxpayerska ka imaanaysaa marka dadkii isbitaalada tegi jiray oo muxuu markii madaxa laga qabto sababtoo ah dadku hadday dhakhtar caadiya tagaan haddaysan kaar caafimaad lahayn lama arkaayo laakiin hadday emergency-ga tagaan markaas wax ku meel gaara ama degdega lasoo siinayaa oo kaleeto marka dadkaas ayay hoos u dhigtay dadkii isbitaalada inay tagaan ee badisay muxuu ahayd dadkii inay isfiiriyaan oo qaybta preventative-ka la dhaho ama isfiirinta oo muxuu ahayd qofka inuu mar walba la socdo ama uu ka warqabo muxuu ahayd caafimaadkiisa uu mar walba eego taas ayay muxuu ahayd haddana ay kordhisay marka wuu gudbay biilkii lagu bedeli lahaa biilkaas wuxuu u socdaa sanadka markuu tago hadda sida uu yahay hadduu kusii socdo ma gudbi doono sida saadaasha ka muuqata ee dadka siyaasadda saadaaliya ay leeyihiin inta badan xisbi kasta oo markuu awoodda haysto biil buu soo saaraa taariikhda waddanka markii gadaal loogu noqdo biilkaas oo ayagoo awoodda haysta aqlabiyadda muxuu ahayto dowladda markay haystaan ayaga ay ka taliyaan biil ama sharci bay soo saaraan sharciga markay soo saaraan sharciga wuu dabagediyaa oo waxaa la dhahaa suicide bills in muxuu isku dileen camal siyaasad ahaan waa inay qoorta ama iska jareen camal ayuu ka dhigan yahay sababtoo ah dadkii oo dhan baa ku kacaya dadkan ku xisaabtan waa lasoo doortaa marka dadkii kusoo dooranaya haddaadan u adeegaynin ayagiina way kacayaan macnaheeda waxaa waay berrito markaa u timaado in shaqadii lagugu celiyo ood awoodda ku heshay dadkaana ku keenay shaqada kuma codeynayaan qofka kaloo imaanayo oo wax kale ka ballan qaadaya ay u codeynayaan marka hadda New Jersey oo kaleeto ma xasuusto ninka magaciisa nin baa jira awood leh asagana muxuu Congress-ka loo soo doorto kursigiisii hadda xayeysiinta waa la bilaabaa daraad yeereysay New York oo kaleeto ayadana mid kale ka jirta muxuu California district waxaa jira aad loo eegi doona asagana marka wuxuu u badan tahay biilkaani hadduu gudbiyo iyo hadduusan gudbin labadaba the fact uu ka gudbay xaq in muxuu ahayd uu ka gudbay Congress-ka waxay tahayba inay muxuu ahayd lugta iska gooyeen xisbiga jamhuuriga ayaga inuu dhiman doono ay weeg tahay uu ku dhiman doono sanadka laakiin yaa soo saaraya mataqaanaa xisbiga dimuqraadiga markii la gaaro 2018ka oo doorashadii la gaaro way soo saari doonaa waxay leeyihiin it will not require that much wax fara badan ma geli doonaan oo muxuu ahayd inay xayeysiin ka sameeyaan aaday u fududaan doontaa hadda aniga waa kasii fikirooyo I can just see xayeysiinta si ay ekaan doonto ay isku xayeysiinayaan muxuu ahayd dadka raba in lasoo doorto dimuqraadiga ah marka intaasaan ku keenaa wixii su'aala ii soo dira saa ii dhegaysataan mar walbana waa mahadsantihiin haddii aan la idmo khayr aan idin rajeynaa asalaamu calaykum